xaaladda deegaanada dowladgoboleedka Soomaaliyeed ee Puntland aad buu ugu cakiran yahay maanta marka laga hadlayo Axmedow halka lagu magacaabo hadda aan kula hadlayo ka raaxo waxaa si toos uga socda dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamadii dhawaan ka tagay Calmiskaad iyo sidoo kale ciidamo dowladda goboleedka Puntland ee ka daba dirtay kuwaas oo la dagaalamaya ciidamada lagu magacaabo Calmiskaad Force waxayna xilliga kan xaaladdu u muuqataa inay aad u culus tahay qadar yar ka hor ayaa dagaalkaasi qarxay oo ka qarxay halka lagu magacaabo ka raaxo ciidamaduna isaga soo horjeedaan Saciid Cabdillaahi Danina waxa la sheegay in amarkiisa kama dambaysta uu saraakiisha mar kale ku celiyay oo uu sheegay inay si degdeg ah ay arintaas uga howlgalaan ayna soo afjaraan sida uu sheegay maleeshiyadka taageersan Villa Soomaaliya ee doonaya inay khalkhal geliyaan deegaanada dowladgoboleedka Puntland. kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena xulashada wararka qodobada aan idinku hayana waxaa ugu waaweyn ciidamo ka tirsan Puntland oo sheegay inay ka soo baxayaan buraleyda Calmiskaad kadib markii ay u dulqaadan waayeen tallaabooyinka adag ee Puntland ay ka qaadayso ciidamada taabacsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. ciidamo isku hor fadhiya deegaanka Kodmo oo hoostaga degmada Qardho ee gobolka Karkaar iyo xiisad culus oo halkaasi ka taagan. wararkii ugu dambeeyay ee deegaankaasi ayaan barnaamijka xulashada wararka idinku haya. Saciid Cabdillaahi Dani oo ku dhawaaqay inuu ka harayo tartanka doorashada ee Puntland ee soo socda. maxay tahay sababta? barnaamijka xulashada wararka ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii baidmo. sidoo kale kulamadii ugu dambeeyay ee Saciid Cabdillaahi Dani madaxweynaha Puntland uu ka waday gobolka Mudug iyo waliba xaaladaha halkaasi ka taagan ayaan barnaamijka sidoo kale idinku soo gudbin doonaa haddii baidmo. fadlan daawada haddaad ku cusub tahay baraha aan ku leenahay bulshada kusoo biir channelka subscribe noo saar muuqaalka like garee oo share garee. aan ku bilownay ciidamo ka kala tirsan Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya kuwa taabacsan oo isla deegaanka ah ayaa waxa ay isku hor fadhiyaan deegaanka Kodmo oo hoostaga degmada Qardho ee gobolka Karkaar. xiisadan oo ilaa iyo shalay ka taagnay deegaanadaasi ayaa ilaa iyo hadda aan lagu guuleysan in la kala qaado ciidamadaasi iyada oo laga cabsi qabo in halkaasi uu dagaal uu ka dhaco. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Danina waxa uu dhaar iyo wacad ku maray inuu soo afjarayo ciidan kasta oo taabacsan dowladda federaalka ee Soomaaliya isagoo sheegay in ciidamadaasi laba wado oo midkood uu u furan yahay in ay ku biiraan ciidamada Puntland iyo inay isu soo dhiibaan ciidamada Puntland iyo in uu dagaal uu la galo haddii kale aysan si kale ku nabadgeli karin. hase ahaatee odayaasha deegaanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo waliba bulshada deegaanka oo ciidamada kala gacan siinaya ayaa ilaa iyo hadda ku kala dhex jira waxaana la sheegayaa inaan wali lagu guuleysan in ciidamadaasi la kala qaado oo lagu kala celiyo goobihii iyo deegaanadii markii hore ay ka soo kici tibeen. ciidamadan ayaa la sheegayaa markii hore inay ahaayeen ciidamo beeleedyo ay leeyihiin beelaha walaalaha ah ee halkaasi wada dega ee Ismaaciil Saleebaan iyo Cali Saleebaan iyo waliba Ugaar Saleebaan. ciidamadan oo la sheegay markii hore inay mushahar ay ka waayeen ciidanka Puntland iyo dhinaca Puntland ayaa ku qasbanaaday inay hoos tagaan dowladda federaalka ee Soomaaliya taas oo keentay in halkaasi ay mushahar ay ka qaataan ayna noqdaan ciidamo ka amar qaata dowladda federaalka ee Soomaaliya. haddaba wararkii ugu dambeeyay ee deegaanadaasi iyo xaaladdu sida ay tahay waxaa soo aruuriyay oo si toos ah qadka telefoonka ugu jira Cabdi Jamaal oo aan ka waraystay xaaladda deegaankaasi. Cabdi Jamaal soo dhawow, waa sidee xaalka deegaanka Kodmo ee hoostaga degmada Qardho iyo waliba ciidamadii halkaasi isku hor fadhiyay? deegaanada dowladgoboleedka Soomaaliyeed ee Puntland aad buu ugu cakiran yahay maanta marka laga hadlayo Axmedow halka lagu magacaabo hadda aan kula hadlayo ka raaxo waxaa si toos uga socda dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamadii dhawaan ka tagay Calmiskaad iyo sidoo kale ciidamo dowladda goboleedka Puntland ee ka daba dirtay kuwaas oo la dagaalamaya ciidamada lagu magacaabo Calmiskaad Force waxayna xilliga kan xaaladdu u muuqataa inay aad u culus tahay qadar yar ka hor ayaa dagaalkaasi qarxay oo ka qarxay halka lagu magacaabo ka raaxo ciidamaduna isaga soo horjeedaan Saciid Cabdillaahi Danina waxa la sheegay in amarkiisa kama dambaysta uu saraakiisha mar kale ku celiyay oo uu sheegay inay si degdeg ah ay arintaas uga howlgalaan ayna soo afjaraan sida uu sheegay maleeshiyadka taageersan Villa Soomaaliya
ee doonaya inay khalkhal geliyaan deegaanada dowlad goboleedka Puntland. waa gartay maxaa marka ilaa iyo hadda ciidamadaasi loogu guulaysan laayahay in la kala qaado oo lagu kala celiyo goobihii ay markii hore ay ka kala yimaadeen? Axmedow, kala qaad waa soo xirmay kiiskaas. ciidanku may ogola in wax la kala qaado. odayaasha dhaqanka ee ku sugan halka lagu magacaabo Raka Raaxo waa ku guuldareysteen inay arrintaas ka shaqeeyaan, sababtay tahay garabka Saciid Cabdilaahi Dani way diideen wax waana waxay sheegeen keliya inay ogol yihiin laba shay. midda koowaad inay ciidankani gacmaha taagaan, hubkoodana tiiriyaan, iyagana maxaabiis ahaan loo soo xiro, iyo inay gacantooda uga adeegtaan oo ay dagaal culus ku qaadaan oo halkaas ay si awooda ku kala baxaan. labadaas qodob ayay doorteen. mana jira ayay dhaheen qodob kale oo aan ka wada hadlayno oo ku aadan arrinta ku saabsan ciidankan iska soo horjeedno. marka xaaladdu waxaad moodaa inay si military ku dhamaatay, ayna guud ahaan meesha ka saarayso in ay wada hadal iyo xal kale lagu dayo. sidana Saciid Cabdilaahi Dani asalba shaxdiisu waxay ahayd markii hore inuu ciidanka PSF uu ka saaro deegaanada dowlad goboleedka Puntland. talabada labaadna waxay ahayd ciidamada lagu magacaabo Calmiskaad inuu ka saaro meesha. sida muuqatana ciidamada Calmiskaad ayuu saaraya, kadibna wuxuu doonayay haddii General Jimcaale xal laga waayo iyo guud ahaan dhinacyada kaleba inuu tallaabo adag iyana uu ka qaado. marka waxaad moodaa ujeedkiisii iyo qorshihii oo watay inuu si adag u wajahay. waanwaantii iyo wadahadaladii ay wadeen odayaasha iyada ma meesha ayay ka baxday? waxaas way fashilmeen. dagaal ayayna kusoo dhamaatay. haddii xabadda la joojiyo oo xabadda socota ay istaagto, lama garanayo natiijadu sida ay isu bedeli karto. laakiin ilaa hadda cid waan wada ma jirto. Saciid Cabdilaahi Dani wuxuu ku sugan yahay weli magaalada Gaalkacyo oo uu kulamo ka wado, oo kulankii ugu dambeeyey oo weliba ka sheegay inuusan ahayn murashax u taagan madaxweynaha maamulka Puntland, balse sida muuqata si dadban ayuu dadka fariin adag ugu soo dhiibay oo anigu ma tegayo oo xisbigayga ka ayaan qof ka keensan doonaa. marka arrintu waxay u moodaa in xaaladdu ay weli ay adag tahay Puntland. sad ogtahana waxay bilaabeen maamulka Puntland waxa lagu magacaabo cabsigelin oo ay ku sameynayaan siyaasiyiinta kale ee hawdoorka ay doonayay inay deegaanada Puntland ay saameyn ku yeeshaan. cabsigelintaasi waxa ay tahay oo ku timid arrinta ku aadan ciidanka maxaabiista. saraakiisha PSF ayaa la soo bandhigay inta badan 120 askari oo rag waaweyn oo saraakiil ah oo aan la ogeyn inay ku jiraan xabsiga dhexe ee magaalada Garowe ayaa warbaahinta iyagoo gacmaha ka xiran hor keenay, taasoo ah fariin cad oo loo dirayo siyaasiyiinta kale ee dowladda ka soo horjeeda. waa tahay Saciid Cabdilaahi Dani ilaa iyo hadda weli Gaalkacyo ayuu ku sugan yahay. maxaa ilaa iyo hadda u qabsoomay oo aan ka ognahay qaybaha kala duwan ee bulshada ayuu la kulmayay? xiisadan si loo dejiyo weli wax guul ah oo uu ka gaaray ma jirtaa dhinaca gobolka Mudug? marka laga hadlayo Saciid Dani waxyaabo badan oo tilaabo waaweyn iyo hore u qaaday oo ay kamid tahay inuu ku guuleystay inuu ciidamadii ku jiray xero Istanbul ay u soo gacan galeen iyagii iyo gaadiidkoodii, inkastoo weli la isku haysto hubkoodii iyo sida loo maareynayo iyo sida dowladdu ay arrintaas uga farceli karto. weli kuma soo guuleysan inuu gacanta ku dhigay ciidamadii ku jiray xerada Barta Dheere. beero kale ayaa iyaguna sheegayay in haddii xal iyo waan looga doonayo ay suurtagal tahay inay la tacaamulaan maamulka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani, laakiin hadduu isku dayo inuu awood oo isku dayo inuu ku maamulo ay ka hor imaan doonaan oo si cad ay ciidamadooda u soo bandhigayeen oo la arkayay iyagoo oo goodinaya sheegayana inaysan aqbali doonin in hab oo bahdila ciidamadooda iyo gaadiidkooda looga qaato. waayahay wuxuu sheegay inuusan musharax u taagan u ahayn mar kale xilka madaxweynaha ee Puntland. hadalkaasi maxaa uu ka dhignaa, maxaa uu ka macnaaha? hadalkaas wuxuu ka dhignaa fariin uu dirayo oo ahaa aniga shakhsiyadeyda ma socdo oo ma doonayo inaan mar kale isu taago inaan noqdo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland. waxaan doonayaa inaan ka tago oo aan aado ilaa heer federaal. heer federaalna waa nasiib oo ma ahan markii ugu horreysay Dani isku dayo inuu heer federaal uu isku dayo inuu murashax u noqdo, laakiin hadda ayay u muuqataa markan inuu mar kale himlinayo oo isku dayo isagoo isle waa markaad qaadan lahayd ama aad heli lahayd. marka waxaan eegaynaa xaaladda iyo siday wax ugu suurtagalaan, laakiin waxa uu dadka si cad ugu sii sheegay in xisbi ka hadlaya oo si uu leeyahay oo murashax ka soo saari doono, murashaxaas oo tartami doono maxaa la dhahaa haddii la doortana nasiibkiisa, haddii la dooro waayana nasiibkiisa. laakiin sida muuqata
xaalku sidaas maana Siciidina wuxuu doonayaa inuu si xoog iyo farsamo kasta uu leeyahay oo ku riixo waxa loo yaqaano shakhsiga isaga xaggiisa ka socda. ugu dambeyntii xiisadahan isdiidan ee dhinaca ciidamada ee weli ka taagan deegaanada Puntland ma isleedahay si wanaagsan ayay ku soo dhamaan karaan iyada oo aan dhib iyo dagaal uusan dhicin? Axmed horta dagaal hore ayuu u dhacay oo wuxuu ka dhacay magaalada Gaalkacyo, wuxuu ka dhacay magaalada Boosaaso duleedkeeda, haddana wuxuu ka socdaa gobolka Bari iyo gobolka Karkaar meel u dhaxaysa. Rakarax ayaa la isku dagaalayaa. Dagaalku ma dhamaaday deegaanada Puntland muddooyinkan dambe, laakiin waxaa cabsi kale laga qabaa in mar kale deegaano kale oo hor leh oo dagaal ka dhaco. Haddii uu Siciid isku dayo inuu arrintaas ka shaqeeyana oo hab nabadeed ku wajahana waa la arki doonaa. Haddii uusan ku wajahinna kuley la ismuri doono. وهاجاك داود يا أنت سيان كسر قبل قبلين برنامج كأنه حلاشة ورقة وسيطة ساعد قد داود سين وما تي في فضل داود هذا كل عصب تهاي برها عن كل إنها بشدة كسر بير channel كسبسكرايب نوصار مقال كلا جري أو شير جري